waxaana wanaagsan daawadayaal halkani waa janalkeena runta wararka qodobada warkeena aad ku daawo doontaana waxaa ka mid noqon doona dagaalka siyaasadeed ee markan ka dhex bilowda madaxda maamul goboleedyada dalka oo kalifi kara in gebi ahaanba shirka muqdisho ka soconaya lagu kala tago iyo qaar ka mid ah culimada Soomaaliyeed oo si gaar ah kaga hadlay xaaladda siyaasadeed ee waqtigan ka jirta Soomaaliya midowga musharaxiinta oo qalqal ka muujiyay waxa waqtigan ka jira teendhada Afisyooni Cali Dheere oo si la yaab leh kaga hadlay dhibaatooyinka waqtigan ka jira isla markaa ana sheegay in shacabka Soomaaliyeed loo baahan yahay in waqtiga kan la gargaaro ayaan warkeena idinkugu soo gudbin doonaa qodobadaas iyo qodobo kale oo arrimaha Itoobiya ay ku jiraan ayaa daawadayaal warkeena ku daawan doontaan hadaba daawada hadii aad ku cusub tahay janaalkeena runta wararka subscribe noo saar janaalka si la mid ah wararkeena like share ki commentiga noogu dadaala aan ku bilaabo qodobka ugu horeeya wararkii ugu dambeeyay ee ka imaanaya shirka ka soconaya teendhada Afisyooni ayaa waxa uu muuqanayaa in shirkaasi hadda khilaaf cusub uu ka soo kordhay taasina uu muuqan karto in shirka gebi ahaanba lagu kala tago shirka ka soconaya teendhada Afisyooni ayaa waxaa madaxda maamul goboleedyada dalka qaarkood ay si cad ay uga soo horjeedaan in ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble lagu wareejiyo awoodda guud ee amniga dalka madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa si kalsooni leh u sheegay in uu uga tagi doono shirka gebi ahaantiisba hadii mar kale looga hadlo shirka arrimaha amniga ku aadan waxaa dooda ugu weyn ay waqtiga kan ka imaanaysaa in ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble in aanan amniga dalka lagu wareejin Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor iyo sidoo kale lafta gareen ayaa taasi qaba si la mid ah Saciid Cabdullaahi Dani iyo sidoo kale Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa waxa ay aaminsan yihiin in fikir ah in lagu wareejiyo awoodda guud ee amniga dalka ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble hadii ay taasi ay dhici weysana in shirka ay ka bixi doonaan waxaana tani u muuqanaysaa in isjiidka hadda shirka ka jira uu noqon karo mid dib u dhac weyn ku keeni kara arrimaha doorashooyinka bulshada Soomaaliyeedna ay ka rajeynayeen shirkaasi wax wanaagsan ay ka soo baxaan hadda uma muuqanayso in shirka wax wanaagsan ay ka soo baxayaan maadaama khilaafka xoogan ee hadda soo kala dhaxgalay madaxda maamul goboleedyada dalka qaarkood uu noqon karo mid saameyn badan yeelan kara sidoo kale waxa laga cabsi qabaa in gacanka hadal uu dhaxmaro madaxda maamul goboleedyada dalka qaarkood oo ay ku sugan xarunta shirka oo ka soconaya ee teendhada Afisyooni hadii wax waliba sidaan ay sii ahaadaan waxay gebi ahaanba shacabka Soomaaliyeed oo noqon doonaan kuwo ka niyad jabay iyadoo sidoo kale laga cabsi qaba in dibadbaxyo kala duwan oo looga soo horjeedo madaxda maamul goboleedyada Galmudug iyo Koonfur Galbeed ay ka dhacaan magaalada Muqdisho iyo qaybo ka mid ah deegaanada ay maamulaan waxaana ay caqabado waaweyn ee kala kulmi karaan beelaha ay ka soo jeedaan Axmed Qoorqoor iyo sidoo kale Cabdicasiis lafta gareen maadaama ay horay digniino kala duwan loogu jeediyay Mareykanka iyo qaramada midoobay ayaa natiijo wanaagsan shirkani ka sugayay hase ahaatee Mareykanka iyo qaramada midoobay ayaa go'aan lama filaan ah qaadan doono hadii shirkani ay ku kala tagaan madaxda maamul goboleedyada iyo sidoo kale ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble gudoomiyaha gobolka Banaadir shirka ayaa hadda madaxda maamul goboleedyada ee shanta ah iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble cid kale oo ku helisay aysan jirin maadaama isfahan waa aad u xoogan uu ka dhex taagan yahay madaxda maamul goboleedyada iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble Cali Guudlaaw Xuseen ayaa waxa uu yahay mid weli ka gaabsanaya go'aamada isla markaana aanan cadeysanaynin mowqifkiisa maadaama oo horey loo sheegay inuu ka agdhow yahay filla Soomaaliya warar ay heshay warbaahinta runta wararka ayaa waxa ay sheegayaan in ay had iyo jeer laga cabsi qabo in dhibaato weyn uu dalka uu galo inkastoo midowga musharaxiinta ee walaac xoogan ay ka muujinayaan waxa hadda ka soconaya teendhada Afisyooni waxa ka soconaya ayaa waxay yihiin dhibaato badan mid u keeni karo ummadda Soomaaliyeed waxayna ay sheegeen midowga musharaxiinta in loo baahnaa in wax waliba wada hadal lagu xaliyo isla markaana khilaaf kasto laga hortago sida ay sheegeen mas'uuliyiinta midowga musharaxiinta hadalka midowga musharaxiinta ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli khilaafka ka dhex taagan madaxda maamul goboleedyada uu yahay mid cirka isku sii shareeraya isla markaana shirka u muuqanaya in lagu kala tagi karo isagoona wax natiijo ah aan ka soo bixin
dhanka kalena daawadayaal wararkii ugu dambeeyay ee ka imaanaya Puntland waxay sheegayaan in saraakiisha sarsare ee ciidamada BSF ta Puntland ay wali ay doonayaan in awoodda gacantooda ay ugu jirto maadaama madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo horey u sheegay in uu wax waliba oo awood ah isaga ay gacanta ugu jiraan hase ahaatee saraakiisha BSF ta Puntland ayaa waxa ay si cad u tilmaameen in dagaal mar kale uu ka bilaaban karo magaalada Boosaaso ayaa waxay u muuqanaysaa in xaalad adag ay galayso maalinta ka dambeyso inkastoo odayaasha dhaqanka ay ka gaabinayaan xaaladda siyaasadeed ee waqtigan halkaasi ka jira ilmo Diyaano oo go'aankooda ugu weyn uu yahay dhaxashii horey ay u dhaxleen aabahood oo horey u ahaan jiray taliyaha hay'adda nabad sugidda Puntland in xilkaasi marnaba ayna beebeen in ku weyn doonin isla markaana dhiig fara badan uu ku daadan doono magaalada Boosaaso haddii magaalada Boosaaso mar kale dagaal uu ka bilaawdo waxa shacabka qeybaheeda kala duwan ee ku sugan qeybo kamid ah deegaanada Puntland horey loo sheegay in dhibaato fara badan ay soo gaari doonto Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke iyo Cabdiraxmaan Faroole ayaa qodhooda waxay u muuqanayaan inay ka gaabinayaan xaaladda siyaasadeed ee waqtigan halkaasi ka jirto Dani ayaa waxa horey uu sheegay inuusan ka laabanaynin xilka qaadista oo Maxamuud Diyaano uu ku sameeyay hase ahaatee waxa sidoo kale reer Diyaano ay doonayaan in ay mar kale ay dagaal cad ay Dani ay la galaan haddii dagaal uu ka dhaco magaalada Boosaaso ganacsiga guud ee magaalada ayaa hakad geli doona sidoo kale dekada ayaa albaabada la isugu dhifan doona iyadoona ciidamada BSF ta Puntland ay sheegeen in wax ganacsiga iyo dhaqdhaqaaq haysan ka jiri doonin guud ahaan Puntland ayaa hadda waxay u muuqanaysaa in ay cagta ay saartay wadada burburka maadaama ay tahay maamul goboleedka ugu da'da weyn ee deegaanada maamul goboleedyada dalka tanina waxa maalin kasta ay si gaar ah bulshada Soomaaliyeed u hadlaysaa dhibaatooyinka hadda ka jira halkaasi si la mid ah waxa horey uga hadlay Mareykanka iyo qaramada midoobay iyagoona sheegeen in loo baahan yahay dagaalka ka jira qaybo kamid ah magaalada Boosaaso in wax waliba wada hadal lagu soo dhameeyo isla markaana laga fikiro aayaha iyo mustaqbalka shacabka deegaanada maamulkaasi dhinaca kalena Sheekh Cali Maxamuud Raagi Sheekh Cali Dheere ayaa waxa uu si adag uga hadlay khilaafka xoogan ee waqtiga kan Farmaajo iyo Maxamed Xuseen Rooble ka dhex taagan afyeenka xarakada Al-Shabaab Sheekh Cali Maxamuud Raagi Sheekh Cali Dheere ayaa waxa uu isku soo duubay cod maqal cod maqal ah oo soconaya 25 daqiiqo oo kaga hadlaya khilaafka madaxda dowladda federaalka Soomaaliya isagoona khilaafka ku tilmaamay mid banaanka soo dhigaya daacaddarrada madaxda Soomaalida codkaani ayaa waxa uu noqday mid ay si gaar ah ay loo wada hadalhayo iyadoona Sheekh Cali Dheere uu sheegay in khilaaf kasta uu noqonayo mid dhibaato badan shacabka Soomaaliyeed ku noqonayso afyeenka Al-Shabaab ayaa inta uu hadlayay waxa uu tusaale u soo qaatay dagaalada ka dhacaya magaalada Boosaaso ee dhaxmaray ciidamada Puntland iyo dagaalka Guraceel ee ku dhaxmaray Galmudug iyo Ahlu Sunna waxaana uu isku dhacyadaasi ku tilmaamay kuwa ka dhashay daacaddarrada iyo sidoo kale maamul xumida dowladda ka jirto Soomaaliya sida uu hadalka u dhigay Cali Dheere waxaana uu sheegay in ay shisheeyaasha ay doonayaan in ay Soomaaliya dhibaato ay ka wadaan sida uu sheegay afyeenka Al-Shabaab dhanka kale afyeenka Al-Shabaab Cali Dheere ayaa ka hadlay abaarta daran ee ka jirto Soomaaliya isagoona sheegay in hoggaanka sare Al-Shabaab ay u magacaabeen guddi u qaabilsan gurmadka abaaraha kaasi oo ka kooban 7 xubnood waxaana uu tilmaamay in mar waliba ay fiican tahay in shacabka Soomaaliyeed la gargaaro isla markaana ummadda muslimiinta ah ay dhaxda u xirtaan sidii loogu gargaari lahaa dadka Soomaalida ah ee abaaraha waqtigan ay haystaan dhanka kalena wararkii ugu dambeeyay ee ka imaanaya wadanka Itoobiya waxa uu sheegayaa in Itoobiya wali ay xaalad adag ay ku jirto iyadoona ciidamada jabhadda TPLF ay soo riixeen ciidamada dowladda dalkaasi maalmihii ugu dambeeyay duqeymo ayaa ka soconaya qaybo kamid ah wadanka Itoobiya gaar ahaan xadka Itoobiya iyo sidoo kale Suudaan ay wadaagto dagaalka ayaa waxa uu u muuqanayaa in uu saameyn fara badan uu ku yeeshay ganacsiga guud ee wadankaasi iyadoona wadanka Itoobiya dagaalkan sanad jirsaday uu noqonayo mid saameyn badan ku yeeshay shacabka ku nool wadankaasi kooxda Oromada ayaa horey waxay u sheegtay in ay ka baxday taageeridii ay siin jirtay jabhadda TPLF taasi oo dhabarjab weyn ay ku noqotay jabhadda TPLF markii Oromada ay heshiis la galeen ra'iisul wasaaraha wadankaasi Itoobiya Master Abiy Ahmed
Abiy Ahmed ayaa horey u sheegay in uu wax wada hadal ah uu la geli doonin TPLF isla markaana awood uu kaga saari doono wadankaasi Itoobiya. guud ahaan daawadayaal warkii oo aad ka daawanayseen janaalkeena runta wararka daawadayaal waa naga inta. haddaba daawada haddii aad janaalkeena ku cusub tahay janaalka subscribe noo saar oo gambaleelka furo si ay kugu soo dhacaan si lamid ah wararkeena like iyo share commentiga noogu dadaala. waadna ku mahadsantihiin daawashada warka janaalkeena runta wararka.